السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalin sabti sniinha bisha Juunna waxa weeye 6 waa maalin runtii Ramadaan ka koob u yahay. waxaan safar uga soo socdaa magaalada caasimadda ah ee Stockholm. waxaan ku sii jeedaa magaaladeedii Göteborg aduu qiyaastii wax saacad ka yar baa ii haray. isla markaasna maanta waa maalin waddankan aanu joogno Sweden maalintii xorriyaddooda ama maalintii calanka yiraahdaan. waddan la gumaystay maaha ilaa iyo muddo 500 sano ku dhow buu maaragtay xorriyaddiisa haystaa. saacaddu waxa weeye waa 8 fiidnimo. saasoo tahay qorraxdu way soo jeedaa. afurkii nooma dhowa waa maaragtay ilaa iyo 2 saacadood iyo in ka badan baa hartay. haddaan ku soo noqdo waxaan u jeclaystay in aan muuqaalkan soo dayayo. wuxuu weeye maanta waxaa tegey xerada qaxootiga ee Dhadhaab ama ifo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud. runtii u malayn maayo in uu u tegey jacayl dadkaas uu qabo meesha joogo uma tegin. doorasho iyo waxbaa soo dhow. runtii waxaan u haystaa kolley inuu rabo inuu doorashadaas cod ku iibsado, dad ku iibsado. taasna waa siyaasad kaleeto oo isaga dhinaciisa. madax kaleetana hore way u tagtay, laakiin madaxweyne ahaan waa isaga ugu horreeyey qof magaca madaxweyne wata. runtii waxaan ka maqlay BBC-da hadda waxaan ka maqlay dad fara badan oo ka cabanaya celinta dib loogu celinayo Soomaaliya oo ka soo yeeray dowladda Kenya ay leedahay xerihii waan xiraynaa dadkooda dib loogu noqdaan. sidaan ognahay Kenya dhibaato fara badan baa dadka ku haysata oo calool xumo fara badan ah. qofka Soomaaliga runtii markii la arko waxaa loo haystaaba dollar socda inuu yahay. weligii anigu Kenya ma tegin. hase yeeshee dadka warka halkaa ka imaanaya maaha kolley war aan jeclaystay oo fiican ama qurux badan sida Kenyaatiga ay ula dhaqmaan dadka Soomaaliyeed. haddana saasoo tahay dadkii waxaad u moodaa inaanay waddankiina rabin oo aanay jeclayn. qof kasta oo annaga naga mid ah oo Soomaali ah wuxuu jecel yahay oo uu rabaa in waddankii uu hagaago, laakiin ma jiro qof ka qayb qaadanaya siduu waddanku u hagaagi lahaa. bal adiga hadduu dhib meesha kugu haysto oo aadan rabinna waddankii inaad dib ugu noqoto oo aad sugaysid waddankii ilaa uu ka hagaago, yaa hagaajinaya kula tahay? ma amisan baa hagaajinaysa waddanka? ma cid kaleeta hagaajinaysa oo dibadda nooga imanaysa? ma yacni qayladhaan baan dirsannay oo gurmad baan sugaynaa? waa may war meeshaad ku dhimanaysid waad ku dhimanaysaa. ama xagga ama Kenya ku dhimo ama Soomaaliya ku dhimo. dhimasho wey. waqtiga Ilaahay kuu soo qoray ma waayeysid. ma laga yaabo inaad weysid. axsan waxaa lagu qaatay adoo sharaf ku dhinta oo doonta isqabta, sharaf ku dhinta, waddankaagii dib ugu noqda, gumaysi iyo ciil ka baxa. haddaad rabtid bannaanka inaad seexatid, haddaad rabtid 4 jirdiin intaad joodari soo qaadato aad dhigtid, cid ka kac ku dhahaysa male, cid kuu imanaysa ma jirto. de inaadan dad kaleeta haddaad dhibto qasab waaye oo lagu ceyrsanayo oo lagu kicinaya wax waalan baa lagu malaynaya. laakiin haddaad si normaal ah intaad u dhaqanto meeshaad doontaad ka seexan kartaa, meeshaad doontaad mari kartaa. way jirtaa nimankan al-shabaaba in ay wax uun sameeyaan si ay dadka qalqal u geliyaan. war qalqalkaas meel kastuu yaallaa, Yurub dhexdeedu yaallaa.
qolooyinka ISIS maalin walba wax qarxinaya ama laga baqayo cabsidana gelinayo suuqyada waaweynaa xitaa laga baqayo xitaa waxaa laga baqaya meelaha dadka isugu soo baxaan iyo in la is istaago hadda Faransiiska wuxuu leeyahay wuxuu qabanayaa ciyaaro Yurubta dhexdooda koobkii isreebreebka Yurub buu qabanayaa isla markaasii tina cabsi weyn baa jirta oo runtii cabsi weyn baa jirta oo dadku waa looga digayaa dadku waxaa leeyahay iska ilaaliya meelaha dadku isugu yimaadaan marka malayn maayo inaad dadkiina ifa ku jira aad maqlaysaan laakiin waxaan rajaynayaa xoogaa muddo markay soo wareegto على الأقل إن ليس شيء ومن مالك مقلي من مالك مقلي على الأقل عدك يودي سو جارو وحن الدور لها علمي وحبرشو هتكون مرسيون إنسان ويتعلى وطنكي هو أجر الجامعة كذا صباحي المها ماشي هتكون يستيد هذيك هاد ماشي كوي يستيد كما فينا كما نفضل بدنا المها كريتو الصومالي جوجا وجامعة أنا كذا بحي كنا شقيست كنا نول واحد انت وقرحة كل انت اما حبده لو دفتي وقف وقتيسي سو دماده ادو لفتاده waa ina laba raacda ama diinta islaamka ina isticmaashid macna diinta islaamka aqliga saliimka inuu ku galo oo aad ogaatid war qofkan kulli uu dhiman lahaa maalintu doono maaragtay ilaahay uu doono ayuu naftiisa ceshanaya ama ha ku ceshta ama xabad ha kugu dhacda ama qarax ku dhimo ama adoo sariirta iska jiifa dhimo سكنكaaga waxba lagu dareemayo soo marka iimaanku waa inuu ku galaa waxaan leeyahay qof islaam baan nahay intaan nahay kida nahay hadana iska dawareegiin baad wadaan sida idaacada aan ka maqlay madaxweynaha inii yimid waxbuu sheegay dadkii kale tan waxbay sheegayeen dadka waxay rabaan in ay geliyaan fikradooda macnaha ay madaxweynaha geliyaan bal madaxweynaha intuu هورك محل كينياتا أنت أوتاغو وكذا عدعية بلدات كان إني ودن كان إسكت جوجان وح عقلي سليم ما وعز وعوانمو إن ترى ودن كيجي متجوجاي معنا ودن كيجي متجاي حالد وين وهدرتان دبعت وين وكاعلين كرتنا ماشى أنا يجري أحسن حل وقاتنا ترى ورسليدا إبريس كماشى أنكيه لا حاجة اللي يجي ومعقول عقلي وقلي كراكاس بريسبان ودن كي كدورتي ومعقول ماشتك لكن متجاي ورحال كان ما نشوق أنا وادي دولتنا ترى إجابح ما إذن دوني إن نجابح عفراتك ساعة نجابح على الكي عروسنا يدب عن بعض مقنايا قميسي يكون كمان نولان كرو ما نربينا نكون نولان سو إذا كنت توحدي كرجيني أو فيلايا إن سيدا سكر عتسمين الهيدين أما عتسمين إنسان مركا إن شاء الله وحرجيني إن شاء الله إن عقلك السليم كأو ماركتين وصل نقضه أو إذن كنتين على فيرسانين أو تين أيضا قليلين دتكو إذن كنا عاد وحكا قادتان سي عاد وقب حدان لبعض إذن كويس تماشاس لما أنتي والذين فرتا قفك الصومالي أو اللي سكا قبص حبس بالجيستان العقبة اللي قاعدة قريها الذي كوسو دعا واد وجيدين وح نحن عيل إيو برنامج أنو سميني دولة كينيا إيو سفارده دبده كيالا دت كاسيد الله الحرية دت كاسيد الله نغمية وروح مياه اللودين ورماد اللودين دباتوين كيني اللي هو سميس سو كينيا تيجي بعد يعني وحكفي عنا ذي سومالي دي سومالي دجال قبيل يو قبيل يعني دجال إهلي أهوا كدعي دجال كاس إهلي أهوا كدعي هذا وده ماذا هذا متكلو بلكلو كدرن بنوت من دجال دينه دين تدت كوا وده الربان لكن ويك الربان هذانا دمنتي وحاول وده الشهادة ليسان هذانا وحلا له ما سومالي هيجين ملك ميدا جوجو بل إنه ملك ميد كو إسليه يو إنه كودين يو أكلته ورسي السودامة رمضان كريم ودن النماذج قفكم سجع سكوا أبورا وأسيد جعيلك وكلته هداد ويل تايو جبر جعلاته مع هداد جبر تايو ويل جعلاته جعيلك وحاول قفكاس واحد إيجيسا وناك قفكاس ودم بد إيجيسا وناك قفكاس يتباو
يعني نفسيا وتبونبونينيسا إلا آخر قفك وحنجكو نقطة وتكون دكتبة ودن كنوا واسدو كله ودن يدو معها معناها ما أنت لحية لواتك جون إنكستو هذا الالتيدي يكود لوليو إن العالم كسوق قاعد تصور واللي في السماء ودن مدوا وح gudaha qofka bini aadanka ku jira oo aan marnaba laga tirtiri karin markasto calankaasiitu uu arko ama heesta calanka la qaado inay ilmo ka soo daadato oo qalbigaagu uu xoogaa daciifo maaragtay uu yani qushuuc yar uu ku galo way ilaahay kuuma waayay inuu keeyaati ka dhigo waa ina alxamdulillah tiraada ilaahay Soomaali buu ka dhigay Soomaalinimadaadu waa inaad ku faantaa cajalada inay dheeraato ma doonayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh